الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم maanta ay taariikhdu tahay 26 bishii 7 2021 waxaan halkan ku qabanay shirar badan oo isdaba joog ah oo kuwaas oo ku saabsanaa arrimaha maaliyadda waxaan la kulannay ganacsato qoliyaha wax soo dejiya oo aan kala hadalay dardargelinta iyo kor u qaadida dakhliga ka soo xarooda ganacsiga dekedda iyo lacagtii sales tax ahayd oo waagi dhaweyd ganacsatada iyo dawladdu isla qaateen in la bixiyo baahiyaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin wadooyinkana lagu bixiyo barnaamijkaas waa hirgalay ganacsatada waa uga mahad celinaynaa ogolaanshihii iyo sidii ay noola qaateen shacabkana waa uga mahad celinaynaa kulley dee ganacsatadu shacabkay saarayaan wax weyn ma aha oo kuma kordhin marka la fiiriyo waxyaabaha aan samaynay wax hadeer sicir barar keeni kara ama shacabka kor wax ugu qaadi kara ma ahayn oo laguma kordhin kasoo adduunka guud waxyaabo fara badan oo dhinaca dibadaha ay ka qaaliyoobeen barnaamijkaasi marka afgarad iyo wada hadalka iyaga wuxuu ku soo dhamaaday in aan wada shaqeyno oo ganacsatada iyo dawladdu wada shaqeeyaan qodobkaas intaas ku soo dhamaaday qodobka kale waxaan shir la galay wasaaradda qaybta dakhliga oo wasiir ku-xigeenka dakhliga iyo wasiir ku-xigeenka kale iyo wasiir dowlaha iyo dhammaan wasaaraddu joogtay waxaa laga wada hadlay dardargelinta canshuuraha iyo kor u qaadidda iyo waxyaabaha muhiimka ah oo la rabo in la hirgeliyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in bishan hadday dhammaato aan bilaabi doono khasnadii midaysnayd oo ay dhici doonto bangiga dawladda in wasaarad walba lacagaheedu ay si toos ay u imaan doonaan bangiga dhexe oo dawladda khasnada midaysan iyadoo wasaaraddu iyadoo ay maamulkeedii iyo siday u isticmaalaysay iyo waxeedii leh haddana waxaa noqonaya xisaabiyaha guud baa mas-uuliyadda qaadaya in khasnada midaysan ay dalka ka shaqayso oo dakhli kasta oo dalka soo gala uu yahay dakhli la og yahay meesha uu ku baxayo canshuurta ku waajibtay waxa lagu qabanayo waxaasoo dhan waxaa markaas la ogaanayaa wixii ina soo galay iyo wixii loogu talagalay in lagu qabto markaas odhodkuna wuu ka shaqayn karaayo goortaas dabagal buu samayn karaa xisaabaadkuna wuu la soconayaa marka qodobkaas wasaaradaha waa ugu baaqaynaa waxaan kaloo wasaaradaha ugu baaqaynaa in ay wasaaraduhu ilaaliyaan nidaamka canshuurta inay bixiyaan canshuuraha iyaga soo mara inay siday tahay looga qaato mas-uuliyadaha canshuurta waxaa mas-uuliyaddeeda leh agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka wasiir lagula xisaabtamayo waxaa lagula xisaabtamayaa agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka waxyaabaha la rabo in wasaaradu ilaaliyaan waxaa ka mid ah midaynta shatiyada system baa dawladdu samaysay shati aan systemkii dawladda soo marin oo aan lambarkiisii lahayn oo aan la ogeyn lacag laguma qaban karo ciddii hadhow shatigaa la timaadana canshuurtii waa ku waajibtay waa laga rabaa marka waxaan rabnaa midaasna wasaaradaha dhiman inay qaataan systemkaas shatiyada inay yihiin shatiyo midaysan oo la wada yaqaan oo lambar leh oo cidda bixisay iyo sita wax oo dhan la wada garanayo nidaamkaasna waxaan rabnaa wasaaradaha qaybaha dhiman inay dhammaystiraan waxaan kaloo ka hadalnay sharcigii caafimaadka low lamber 6 iyo khidmadihii iyo waxyaabihii ku waajibay iyo waxyaabihii la kontaroolayay dhakhtar kasta oo meel fadhiya waa inuu shati ka haystaa dhakhaatiirtii xirfadlayaashii loogu talagalay waa inuu shatigii ka haystaa dhakhtar aan shati haysan meel ma fadhiisan karo dhakhtar aan shati haysan haddii ay dhacdo in qof uu dawo siiyey ama wixii dhibgaaro qofkaas magtiisii iyo isaga laga doonaya marka waa inuu wuxuu soo bartay ay caddahay oo ay xirfadlayaasha systemkan la sameeyey inay dhakhaatiirtaas ay u tagaaneen kana qaataan shatigii inuu qofkaasi dhakhtar yahay waxaa jira farmashiyaasha oo kale farmasigii aan haysan warqadii sharciga ahayd oo ah farmasiga inuu farmasigaas ay furteen shatiga aan haysan way imaanaysaa mar dhow in la bilaabo
in dabagal la sameeyo ciidamadii turutaariyada ahayd iyo wasaaraddii maaliyaddu ay isdabagalaan farmasigii aan shatigaas haysan waa la xirayaa ma hayso farmasi sharciya maaha waa sharciyad inuu farmasi noqon karo markii loo fiiriyo wax walba oo laga rabay farmasi markii loo fiiriyo in laga helay baa shatigaa la siinaya iyadana waxaa laga rabaa inay shatiyadooda ay qaataan dhakhaatiirta umulisooyinka haddii baqdarayo kuwan shaybaaristayaasha kuwan raajooyinka dhammaan cid kasta oo khibrad caafimaad leh waa inay madhaa sharcigaas haddeer waa furan yahay waa la bilaabay dhakhaatiirtii hadda way socotaa nersinkii iyo shaybaaristayaashii waa socdaan farmashiyaashii waa socdaan inta aan uusan gaarin in la soo diro ciidamadii turutaariyada iyo wixii qolyihii ka socday barnaamijka oo controlya intii aan la soo dirin waxaa la rabaa in ay dadku qaataan systemka inay maraanin waxaa kaloo iyadana aan ka digaynaa waxaan la yidhaahdo barmuudada oo dhinacyada ka madha kontaroolada ciidamada waxay ku amran yihiin gaari kasta oo barmuudo ah oo la qabto in sharciga la hor keeno canshuurtii baa laga qaadayaa saliskii baa laga qaadaya ganaax baa la ganaaxaya weliba ganaax aan loo turin qofkaasi waa dambiile waa qarandumis baa la dhihi karaa qofka canshuurta la dhuntaa waa qarandumis weliba ganaax aan loo turin baa la ganaaxi doonaa waxaan rabnaa ummaddu inay sistamka caadiga oo sharciga ay maraan inay wadooyinka soo maraan inay canshuurta dhiibaan intaa qofkii ka duwan oo mara ciidamadana waa la hadalay booliiska iyo turataadi amar bay ku qabaaniin meel alla meeshii lagu arko in lagu qabto meel alla meeshii lagu arkana baabuurka in maxkamad lagu saaro waxaa dhici doona qaybtood in baabuurta lala wareegi doono baa dhici doonta markii alaabooyinka qaybtood lagu arko oo magaciisiga sidaa daraaddeed qof walbowna baabuurtaada waxa aad soo saaraysid wax cad waa inay ahaadaan qof walbowna wadada caadiga ah oo sharciga ah waa inaad madhaan oo aad soo madhaaneen qodobkaasna waxaan ka hadlaynaa qodobka barmuudada iyo kontrabanka iyo waxyaabahaasaan ka hadlaynaa waxaan ummadda reer Puntland ugu baaqaynaa inay canshuurta bixiyaan maalin waa ka hadlay canshuurta kirooyinka guryaha kirooyinka baabuurta percentage guryaha garwa kirisan waa la garanaya guriga ugu yar $250 $150 qolka $50 baa lagu kireystay kulli waxa ku waajibaya canshuur baa ku waajibaysa waxaan rabnaa ummaddu inay canshuurta bixiso canshuurtaasaan wax ku qabanaynaa iyadaan amniga ku diyaarinayna ku qabanaynaa iyadaan mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo raashimadooda ku bixinaynaa iyadaan haybadda dawladnimada u jeedaaniin oo aynu haysano haybadda dawladda aad u jeedaan haysanno canshuurtaas weey haddayna canshuurta helin nidaamka dawliga iyo haybadaas ma yeelaneen waxaan rabnaa marka ummadda in aan ugu baaqno inay canshuurta galiyaan wasaaradda waxaan rabnaa in la dardargeliyo aadna loola socdo canshuuraha beriga waliba in awoodda la saaro oo laga shaqeeyo waxaan rabnaa haddii rabbi idmo shaqooyin kale oo ciidamada iyo waxaasan ayaamahan ku mashquulsanayn hadda wixii laga bilaabo waxaan follow up ku haynaynaa canshuuraha iyo say soconayaan iyo sida magciisiga waxaan kaloo rabnaa in controlka internal auditka wasaaradda iyo auditka dawladda labaduba inay shaqeeyaan oo musuqmaasuqa iyo lacagaha imaanaya iyo systemka say u marayaan waxaas oo dhan in lala socdo baan rabnaa oo haddii rabbiidno iyana aan kor u qaadno aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ganacsatada reer Puntland oo mar walba la garab taagan sidii waddankan uu istaagi lahaa in canshuuraha iyo haddii baa qadariyo dawladda garab istaageeda lala istaago waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa ummadda shacabka reer Puntland shacabka Soomaaliyeed oo diyaar la ah dal in canshuur laga qaaday wax loogu qaban karo lacag kale aysan u imaanayn dibadaha iyo hay'adaha in wax la weydiisto ay tahay waa gacan hoorsi aan naqaanaa marka gacan hoorsi waxa laga bixi karaa in aynu inagu canshuurta iska qaadno oo ay gacan aamina ku dhacdo oo gacanta aaminkan ay hadhow waxaanoo ku qabato hadda ka horna waa sheegnay waxaan mar walba diyaar la nahay dakhliga dawladda soo gala system buu leeyahay waa la yaqaanaa systemkaas maanta dakhligina soo galay waa la ogyahay waxaan rabnaa ummadda shacabka ah iyo ummadda Soomaaliyeed si loogu dhiirado in canshuurta la bixiyo in mararka qaybtood dadka aqoon-yahanka iyo ganacsada qaybtood iyo inaan u soo bandhigno dakhligana soo galay
iyo sida uu baxay madaxyada na soo galay iyo sida ay u baxeen diyaar baanu nahay lacagta cusub hadda sales tax aan lahayn oo soo saarayno diyaar baanu nahay iyada laftigeeda waxyaabihii loogu talagalay ka hor dhicmayo madaxweynaha ka hadli doona haddii rabbi idmo ka hor dhicmayo waxaan rabnaa xisaab rasmiya oo cad in aan ummadda hor keeno haddaan sidaa diyaar ugu nahay in wixii na soo gala aan ummadda tusno waxaan rabnaa canshuurta in la bixiyo waxaan kaloo rabnaa inaan dadka ka dhigno reer Puntland qof mas'uula oo wax kala garanaya iyo qof xoog looga qaado canshuurta lana ceebeeyo oo la yiraahdo waa canshuur bixiye liita weeye nin milyandheer ah oo odaya oo muxtarima oo ragii la rabay la soo dhaweeyaa in loo yaqaano geedkaas waa canshuur diida liita ummadda dhexdeeda loo sheego qof jeebyara oo wax yar haystaana lagu amaano shahaado lagu siiyo ninkaasi wuxuu bixiyaa canshuurtu bixiyaa waxaas ay imaan doona haddii rabbi idmo waxaan rabnaa inaynu canshuurta bixinno waxaan rabnaa dalkeena inaan dhisano waxaan rabnaa amnigeena inaan dhisano waxaan rabnaa ciidamadeena inaan dhisano waxaas oo dhan waxay ku imaanayaan in canshuurta bixinno aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu